allaha u naxariistee 7 qof ayaa ku dhintay 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ay laba baabuur isku dhaceen deegaanka u dhaxeeya magaalada Xamaas iyo Lafaruug dhexdooda isbitaalka guud ee magaalada Berbera oo la soo gaarsiiyay dadkaasi dhaawacmay walibana 7daasi qof ee meydka dadkan shilka baabuurku geeriyooday ayaa kala ah 4 dumara iyo walibana 3 raga suduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil Dr. Bashiir ayaana ka warbixiyay shilkaasi iyo sida uu dhacay maanta waxa isbitaalka Berbera ama gobolka Saaxil ka dhacay shil laba baabuur oo isku dhacay gaari bas iyo gaari weyn shilkaas oo ka dhacay wadada u dhaxaysa Xamaas iyo Lafaruug shilka isbitaalka waxa la keenay dhaawac dhan 5 dhaawac ah oo gabadhi ku jirta 4 ay yihiin rag gabadhu xaaladeedu ay aad u darnayd oo imakaana ay go'day 4 dhaawac markaa imaka noqonayaan raga waxa kale oo la keenay 6 meyd oo shilka baabuur ku dhintay 6daas oo 3na dumar yihiin 3na rag yihiin 5tii dhaawac ahayd gabadhii dumar ahayd way geeriyootay Allah ha naxariisto dhamaantoodba intii dhaawacantayna Ilaahay caafimaad siiyo shaqaalaha caafimaadka gobolka Saaxil Berbera iyo gudida iyo dhammaan dawladda hoose waxay ka hawlgaleen sidii loo gurman lahaa tiraba waxa loo diray 4 ambalaas isbitaalkan waxa ka hawlgalay shaqaalihii iyadoo aad ogtiin inay rabadaan tahay haddana reegan culus baa loo galay waxa la isku dayay in wax kasta loo qaban karo loo qabto dhaawac wuxuu badiyay chachab sawirra la saaray wixii la kabayayna si degdeg ah loo kabay wixii kalena waxa loo qabtay gargaarkii degdeg ahaa waxa markaa aan rajaynaynaa inta dhaawacantay Ilaahay caafimaad siiyo inta dhimatayna Allah u naxariisto tirada dhimashadu 7 ay noqonaysaa inta soo gaadhay qofka dhaawac dhintay iyo 6 la keenay Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga SAB TV magaalada xeebada Berbera